Caqli badnaantu waa awoodda aad dhaqsi wax ugu baran karto. Waa awoodda aad ku ururin karto xog, aad ula qabsanayso deegaanka aad ku nooshahay. Waa awoodda aad go'aano sax ah ku samayn karto. Waana awoodda aad dhibaatooyinkaaga ku xalinayso. Warka fiican ee aan ku hayaa wuxuu yahay in aad kordhin karto heerka caqligaaga. Muuqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa 5 tillaabo oo haddii aad samayso aad si aad ah u kordhin doonta awoodda caqligaaga. Haddaba ka hor inta aanan sii gudbin muuqaalkan, fadlan tixgeli in aad subscribe channelka saarto, gambalaalka ama jariska furato si ay kugu soo dhacaan muuqaalada. Miyaynu dhaxalnaa caqli badnaanta? Caqli badnaantu qofku waxay ku xiran tahay oo saameyn ku leh 2 waxyaabood, kuwaas oo kala ah hidaha qofka iyo deegaanka ugu xeeran. Inkastood waxba ka qaban karin hidaha aad waalidkaaga ka dhaxashay, haddana waxaad wax ka bedeli kartaa qodobada ay sababayaan deegaanku sida sare loogu qaado heerka caqligaaga. Kuwan soo socda waa ficilada ay tahay in aad samayso haddii aad rabto in aad kordhiso oo aad sare u qaado heerka caqligaaga. Kordhi cilmigaaga. Qayb weyn oo ka mid ah caqli badnaantu waa in aad xog badan hayso, xogtaana aad iskugu geegayso, intaa kadibna go'aano iyo gunaanadyo aad ka samayso. Haddii aanu qof xog badan hayn, ma noqon karo qof caqli badan. Qof kastaba inta uu qof kale ka xog hayn badan yahay ayuu ka caqli badan yahay. Inta badan in aad wax akhrido, waxna barato, waxay badanaysaa inaad xoog badan ogaato. Taasina waxay sababi doontaa in aad samayso isla markaana aad qaadato go'aano caqli ku dhisan. La soco oo raac dad caqli badan. Ma ogtahay in qaababka fikir ay dadku kala baran karaan? Inta badan ee aad raacdo ama aad ku xirnaato dad caqli badan waxay sababaysaa inaad ogaato habka ay u fikiraan iyo aragtiyahooda, isla markaana aad qaadato. Taasi oo sababi doonta in aad noqoto qof caqli badan. 3. Kor u qaad isku xidhnaanta maskaxdaada. Inta badan ay kordhaan xididada iyo unugyada maskaxdaadu leeyihiin, waxay badanaysaa in aad noqoto qof caqli badan. Si aad haddaba kor uga qaado isku xidhnaanta unugyada maskaxdaada, waa in aad barataa xirfado adag ama aad ciyaartaa geemiska adag sida chess oo kale. Inta badan ee aad sare u qaado isku xidhnaanta unugyada maskaxdaada, waxay badanaysaa inaad noqoto qof caqli badan. 4. Cab kafee. Maadada ku jirta kafeega ee loo yaqaano caffeine waxay kaa dhigaysaa qof maskaxdiisu aad u soo jiidato, waxaana horumarinaysaa awoodda aad wax diiradda ku saari karto. Sidoo kale, cabista kafeega waxay kordhinaysaa awoodda ay maskaxdaadu ku shaqaynayso, waxaana kaa caawinaysaa in aad samayso go'aano caqli ku dhisan. Marka aad rabto in aad isticmaasho awoodda maskaxdaada oo dhan, cab koob kafee ah. Dhinaca kale, sokorta badan iyo cuntooyinka carbohydrate waxay yareynayaan soo jiiditaanka maskaxdaada, waxa ayna saameyn xun ku yeelanayaan in ay maskaxdaadu si fiican u fikirto. 5. Maskaxdaadu sii hawo badan oo neef dheer qaado. Marka aad neef dheer qaadato, hawo badan oo oxygen ah ayaa gaadhaysa maskaxdaada, awooddaada fikirkuna sare ayay u qaadmaysaa. Ma garanaysaa sababta ay dadka qaar u iloobaan hadalka ay oran lahaayeen marka ay khudbad soo jeedinayaan? Sababtoo ah cabsida ayaa ka hor istaagta in ay si fiican u hadlaan, waxaana markaa hoos u dhacdaa awooddii ay maskaxdooda ku shaqaynaysay. Jimicsiga sidoo kale wuxuu kaa caawinayaa in aad hawo badan qaadato oo ay hawo badan maskaxdaadu gaadho, taasi oo kaa caawinaysa in aad samayso go'aano fiican oo caqli ku dhisan. Bal isku day in aad jimicsato, intaa kadibna aad shaqayso ama aad wax barato, waxaad ogaan doontaa inay horumartay sidii maskaxdaadu u shaqaynaysay.